magacayga waa Yusuf Farsamo Jaamac waxaan ka hadlayaa veterinary-ga waxa weeye horta marka hore waa inuu qeexnaa muxuu yahay veterinary-gu waa barashada caafimaadka xoolaha marka veterinary-ga marka laga hadlayo waxyaabo fara badan ayaa marka hore la soo qaadanaya yaa geli kara ama ardayga xaq u leh ama geli kara veterinary-ga beeraha ardaygu waa inuu markuu gelayo veterinary-ga beeraha waa inuu basically ama asaasiyan waa inuu ku wanaagsan yahay science-ka gaar ahaan chemistry-ga iyo biology-ga labada aynu aad iyo aad ugu wanaagsan waxa kale oo geli kara ardaygii ay u suurowdo imtixaanka marka laga qaado soo baxa dadmiin ismaaciil waxa way ardaygaas waa inuu ku wanaagsan yahay labada science-ka inuu aad ugu wanaagsan hore u soo sheegay waa maxay hadaba objectives-ka ama ujeedooyinka guud ee laga leeyahay veterinary-ga ujeedada laga leeyahay waa in la helo dhaqaatiir tayo leh oo wadanka wax u qabta talabaad waxa weeye waa in la helo xoolo caafimaad qaba maadaama wadankeenu uu yahay wadan laf dhabar u ah xoolo dhaqatada dhaqaalaheena uu ku xidhan yahay livestock ama xoolaha waxa muhiim ah in la helo dhaqaatiir hanan karta oo ka soo bixi karta hawlaha loo igmaday ee wadanku u igmaday ee xoolaha waxa kale oo muhiim ah in la gaarsiiyo dadka xoolo dhaqatada ah ee miyiga ku nool sidii xoolaha looga taakulayn lahaa haday noqoto daaweyntooda haday noqoto waxtarkooda iyo haday noqoto cilmisiintoodaba intaas baahida hadaba maxay tahay baahida guud ee wadanku u qabo dhaqaatiirta xoolaha saa la socotaan waa dhaqaatiirta ugu baahida badan la wadanka Soomaaliland ama Soomaaliyaba hadaynu soo qaadno way dhaqaatiirtu maadaama xoolaheenu ay yihiin laf dhabarka koowaad ee dhaqaalaha waxa muhiim ah in ay mar walba tixgelin la siiyo dhaqaatiirta xoolaha waxaan u maleynayaa inay yihiin dhaqaatiirta aad iyo aad loogu baahan yahay marka lambar 1 weeye mar walba baahida ma aha mid halkan lagu soo koobi karo waa mid aad iyo aad u weyn runtiina qof walba Soomaaliland ku nool ama Soomaaliya ku nool uu garanayaa in ay dhaqaalaha Soomaaliya uu ku xidhan yahay ama Soomaaliland ba xoolaha marka taas waa baahida loo qabo waxyaabaha ay bartaan markay kulliyada soo galaan ardaydu waxa kamid ah qaabka iyo sida internal ama gudaha functions ay u shaqeeyaan xoolaha waxa kale oo kamid cudurradii oo dhan sida dabakaruubka kamid kudka kamida waxyaabo fara badan cudurradii oo dhan ayuu baranaya wuxuu kale oo aad u baranaya dhamaan hygiene-kii ama caafimaadkii guud ee xoolaha uu baranaya koorsada halkan lagu soo koobi karo laakiin waa koorso quality leh oo runtii kaafi karana ardayga meesha soo gala waxa kale oo kamida maxay tahay opportunity-ga ama waxyaabo uu ka heli karo ardaygu jaanisadiisu waxaan qabaa inuu yahay ardayda ugu jaanisada badan leh waayo waxay ka shaqeyn karaan self employee way noqon karaan iyaga iskood u shaqeyn kara iyagoo ka shaqeynaya nimanka dairy farm-ka ama dairy-ga samaystay animal science-ka bartay ama waxay la shaqeyn kartaa waxyaha caafimaadka ee ama xanaanada xoolaha ha noqoto ama hay'adahan caafimaadka khuseeyaba ha noqoto aad iyo aad bay markaa jaaniskoodu u badan waxaan waa inay yihiin jaanisyada ugu badan ee ardaygu uu heli karo takhasus qofku wuxuu sameyn karaa takhasusiyo fara badan oo ay ka mid yihiin microbiology pathology takhasus buu ka dhigan karaa epidemiology dairy cattle production food hygiene marka possibility-gaasi oo dhan waa kuwa masterka ku diyaarin karo marka waxaan u sheegaynaa ama aanu kula talinaa ardaydu inay aad iyo aad u maaragtay inay aad iyo aad muhiim ay u tahay haddayna inkastoo wada muhiim ay yihiin beero sidii markii hore looga hadlay iyo animal science-ka laga hadlay iyo kulliyadaas inay tahay kulliyad aad iyo aad muhiim u ah veterinary-ga aan hadda ka hadlaynana dee qof walba uu garanaya muhiimadda ay leedahay qof waloo ardayna waxaan leenahay welcome to that college ama to that faculty marka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin